soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee aad u baran kartaa luqadda ingiliishka adigoo isticmaalaya chat gpt adoo isticmaalaya ai nooc loo yaqaano chat gpt adoo isticmaalaya sidee ku baran kartaa luqadda ingiriiska weeyahay hadda waxaan ku jirnaa website-ka open ai ayaan ku jirnaa marka chat gpt baan ayaan sharixi doonaa sida aad u isticmaali doonto adigoo baranaya luqadda ingiliishka weliba uu kaa caawin doono barashada luqadda ingiriiska weeyahay toos baan u gelaynaa marka kaad soo furata halkan chatgpt baan ku soo galay marka bal waxaynu weydiinaynaa marka hore waa kan inoo soo furnaa hadda waxaynu marka haddaba sameynaynaa marka koobaad waxaynu weydiinaynaa waxaynu odhanaynaa waxaad noo sameysaa create a conversation between two friends hadda waxaan ku qornay wax noo sameysaa wada sheekaysi ka dhexeeya laba saaxiiba noo samee waan ku nidhi marka bal waan eegaynaa siduu noogu sameeyo weeyahay waa kan here is a light rehead waxa weye conversation between two friends catch up waa kaas hadda wuxuu soo qoray Alex wuxuu hi hey Sam long time no see how it's going wuxuu waqti dheer kuma arag xaaladda ka waran sidee tahay saas weeye how it's going sidee tahay hadda marka wada kasta yacnihii wuxuu noo sameeyey conversation ama wada sheekaysi cajiiba oo ilaa muddo yacni wuu dheeryahay wada sheekaysi caadi laba saaxiiba wada sheekaysanaya weeye marka hadda Sam wuxuu yidhi Alex I know it's been ages things are good just as usual chose you wuxuu leeyahay waad sheekaysanayaanoo iska warran waan fiicanahay aad baan wanaagsanahay xaaladdu waa kala degan waxdaas weeye Alex here juggling work family and trying to find time to just chill with you Sam oh you know life is tough but guess what I finally started learning guitar waxaan yani bilaabay ku leeyahay u dambeyntii barashada gitaarka baalkan la garaaco ee music ay nooca sameeya Alex no way that's awesome how is going so far wala taas waa cajiib weeye ka waran sidee tahay yani sidee ahayd macnaa ka waran xaaladkii waxaas weli marka macnaa siduu ahaa oo kale weeye Sam wuxuu pretty good mid aad u fiican bay ahayd except marka laga reebo my fingers you know hate me right now يعني gacmahayga nacay ana fingers hate me يعني right now macnaa farahayga nacay weeye macnaa aniga nacay ka wada yani waan baasha waxaan garaacay waxaas weeyaan ku sheekan kulli waa kaftan right now I didn't realize it would be hard this much يعني maan filanayni inay sidoo kale ay dhaawici doonto marka saaxiibayaal wada aritaan yani inta iyo in ka badan waxaa odhan kartaan iyo weydii create advanced conversation odhan kartaa mid horumar mid beginner waxaad odhan kartaa sidoo kale maxaa waxaad samaysaa yani conversation nooc walba aad doonaysaba gabadhii wiil u dhexeeya ayaad odhan kartaa marka qaabkaas waa qaab ka mid ah yani sida siyaabaha looga faa'iidaysto ChatGPT bal waxaan kaloo weydiinaynaa waxaadna siisaa waxaan leenahay give me 20 intermediate waxaan leenahay intermediate English maxaa leenahay English vocabulary waxaan hadda weydiiyey waxaadna siisaa 20 intermediate English vocabulary 20 xabo oo vocabulary oo waliba nooca intermediate ka ahna si ba hadda yidhi way let me check markaan waxaan hubin oo wuxuu noo soo qoro waa kaas waa noo soo daadiyey wuxuu leeyahay halkan 20 xabo oo waxaan ugu hayaa English vocabulary words weydiin iyo wali macnahooga adventurous willing to take a risk or try a new experience adventurous waxaa la waxyaabaha marka qofku filmaanto kala ayaan taqaan ku daawateen waxyaabaha
duurka la galay ee filmaanta adventureska ah ee mataqaana loo bararo khataraha iyo mataqaana wax saas baa adventures loo yaqaano yacni waan jeclahay qofka adventureska intuu explore adventures balan waqti qofku inuu yacni uu qaato yacni waxyaabo qaar uu ogaado uu mataqaana khatar u badheero wax noocaas loo yaqaan adventure marka wuxuu ku leeyahay willing to take yacni diyaar u tahay inaad qaato risk khatar or try inaad isku tijaabiso new experience waayo aragnimo ama khibrad cusub inaad aragto complicated waa mid adag difficult to understand in adag tahay inaad fahanto or deal with because ama inaad mataqaana xaliso sababtoo ah many interconnected parties waxyaaba badan baa isdhex galay deedna waa complicated waa mid adag waxaan la furfuri karo si fudud aan loo furfuri karin baa loo yaqaanaa complicated enthusiastic waxaa loo yaqaanaa waxaan showing a lot of excitement and interest in something yani wax weeyaan farxadda iyo mataqaana xamaasadda wax noocaas loo yaqaano inta badan significant importance or meaningful mid macna leh oo mataqaana muhiima skeptical waa doubt orama waa questioning something wax yani laga shakisan yahay ama weli aad ka qabto fikir yani shaki ama yani su'aal aad ka qabto oo ku cadayn weeye accurate waa correct and free from errors accurate loo yaqaano wax saxda waxaa lagu odhan karaa give me accurate result isii natiijo sax ah accurate maxay waa sax waa correct free from the yani xorka ah khaladaadada marka sax bal imika waxaad aragtaan ilaa 20 xabo ayuu nasiiyay waad arkaysaan 20 xabo ayuu nasiiyay marka xaqiiqatan waa mid aad iyo aad u muhiim ah haddaan si wadno sidoo karna yani Rachel deliberate efficient temporary generous spontaneous versatile frustrating يعني waad sii wadaysaan maanta dhan marka tana waa qaab kale oo marka iyadna looga faa'iideysan karo ChatGPT looga faa'iideysan karo marka bal wey su'aal saddexaad baan weydiinaa marka waxaan leenahay create baan leenahay create a paragraph about what about education مثلا نرانو education وانا حدنا ويديني كريت كان واحد كتري waxaan idhi wax noo samaysaa paragraph ku saabsan waxbarashada waxaan idhi waa ka hadana noo soo qori ka daaso daad education is a fundamental pillar of personal and social growth providing individuals with knowledge, skills, values needed to navigate the world effectively. الوكاس حتى لو حنو نص قري باراجراف هذه أو ديارسن باراجراف هو قيب يورو يعني هل هدول إنك كومن سنتنس وكاس باراجراف عجيب نص قري صاحب يال هو حوي هذه أدو مهمة شاتي بتين لك ورأيو الله شيء كيستو وحلو حتى نص متخانة كيف هذه سنكرتان مركب حن ليه كور هي